xilliyadii hore bidaarta iyo timaha madaxa oo daata waxay ku xidhnaan jireen da'da qofka oo weynaata wakhtigan aynu hadda joognasi waxaa suuragal ah in mushkiladda ay la tacaalayaan dad badan oo da'doodu kala duwan tahay waxaana halkaa ah arrimo badan oo sababaya mushkiladdan ay timuhu u daadanayaan taasoo suuragala inay yarayso kalsoonida ay dadku naftooda ku qabaan meelo badanna ay u maraan sidii ay mushkiladdaa xal ugu heli lahaayeen laakiin barnaamijkeennan xogta daasoon waxaynu ku soo gudbinaynaa xalka ay arrintaasi u heleen khubarada caafimaad ee caalamka iyadoo dawo aad idinku samaysan karta adeegga aad u baahan tihiinna waa waxoogaa saliidda qumbaha ah beedka digaagga iyo in yar oo malabka saafiga ah kuwaasoo markaad isku wada darto ee isku wada qooshto aad u kaadinayso ilaa ay isku adkaadaan kadibna aad madaxaaga ku dhoobayso oo marinayso intaa kadibna muddo 3 saacadooda ka bacdi waxaad madaxa ku maydhaysaa biyo diiran hawshaa ayaad ku celcelinaysaa toddobaadkiiba 3 jeer muddo 2 bilood oo kaamil ah kadibna waxaad arki doontaan isbeddel wanaagsan insha Allah